بسم الله الحمد لله dhammaan bulshada isugu timid xafladan qiimaha iyo qaayaha badan oo bulshada qaybaheeda kala duwan ka kooban oo duub leh oo u horeeyo wabar socdaal raage wabar cilfaaf oo aan filaya in wabarro kale iyo ugaasyo iyo odayaal dhaqameed iyo culummo aad iyo aad yacni runtii maantay si qiimo badan oo hagar la'aan uga soo qayb gashay xafladan qiimaha badan dhalinyarada odayaasha ganacsatada gabdhaha bahda saxaafadda dhammaantiin waxaan idinku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib xaqiiqa waa laga hadlay xafladan qiimaha iyo qaayaha badan oo lagu soo dhaweynayo wabarka wax badani ma harsana anigu inaan soo istaago ayaa laygu sharfay waana ka mahad celinaa runtii in laygu sharfo inaan halkaan soo istaagoon ummadda la hor istaagay wax idhaahdo sharafay ii tahay ciddii igu sharaftayna aad iyo aadaan ugu mahad celinaa mar kale waxaan u mahad celinaa alla ka sokow ciddii abaabushay xafladan qiimaha qaayaha badan oo lagu soo dhaweynayo wabarka waxaan mar kale u mahad celinaa dadkii loogu yeeray xafladan oo danahoodii iyo adduunyadoodii iyo meheradahoodii intay soo joojiyeen soo aqbalay ee yimidna waan u mahad celinaa waxaan u mahad celinaa xaqiiqa dadka maamulaya ee karatooyada iyo sida nidaamka leh ugu qaybinayo qaabkii loo daadihin lahay sidii wabarka loo marxabayn lahaa oo loo soo dhaweyn lahaa oo looga qayb qaadan lahaa cidda ayadana waan u mahad celinaa intaa kadib waxaan la qabaa ama waxaan ku ayidaa dadkii iga horreeyey wabar socdaal raage wabar cilfaaf inaan ku soo dhaweyno magaalada Nairobi marti noogu yahay waa duub waa dhaqan waa siyaasi waa aqoon-yahan waa dhalinyaro waa hoggaan aan hadda isleenahay markaan fiirinay miidiyaha iyo markaan xaalaadkiisa dirisnay waa nin loo baahnay waqti loo baahan yahana yimid waxaan isleeyahay xaqiiqa wabar socdaal caqiidada kala mid mahano nin ama qof aan caqiidadiisu wanaagsanayn in lagu mataala ma wanaagsana laakiin waa mandeelaha maanta soo baxay wabar socdaal waxaan ogolnahay waxaan taageersannahay waxaan aqbalsannahay waxaan ku faraxsannahay meesha aad ka istaagta bari dhaweyd aad iyo aaday noo farxad gelisay annagoon cid dulminayn cidna ku xadgudbayn inaad masiirka ummadda aad ka dhalata u istaagto dadka rubac gadaysanayana aad ku khilaafto aad iyo aadan kaaga mahad celinaya waxaan mar labaad iyo mar saddexaad soo dhaweynaynaa wabar socdaal raage wabar cilfaaf wabar socdaal runtii qiimahaaga iyo qaayahaaga iyo sharafkaaga laguma soo koobi karo halkaan laakiin insha allahu tacaala waxaa noo ballanaa inaan habeen kula shaqayno maalinna kula shaqayno ku garab istaagno u istaagta ummadda masiirkeeda aad ka soo celiso calool nabiri ay ku jirtaahe calool nabiri wabar socdaal waa kugu soo dhaweynaynaa waana kugu garab taagannahay soo dhawow walaalkeen wabar socdaal intaa kadib ma raba inaan dheereeyo hadalka runtii wabarka anigu waxaan ka mid ahay odayaal mar iyo laba ay isla quraacdeen oo is arkeen intii yaraydna way ku filnaa weysay maxaa yeelay in bulshadan iyo howlkan weyn la isugu yimaado wanaag unbay kordhinee wax xumaana ma keenayso laakiin waxaan rabaa inaan cudurdaar yar ka bixiyo warar yar oo bulshada la dhexgeliyo xaqiiqa warkaasi xaqiiqa aniga saqaasow ii saameynaya laakiin waxaan rabaa dadka inaan u sheego inaan ka caafimaad qabo
aniga iyo inta uu nala gaarayba xaqiiqa hadalkaas waan ka caafimaad qabnaa waxaan naloo sheegay oo isoo gaaray oo aan maqalnay in telefoonna naloo soo diray annagoo qayb ah telefoonadii annaga naloo soo dirayna runtii markii alla laga boqo oon alla hortiisa aan idinkugu dhaaranno wallaahi billaahi tallaahi ma jiraan dadka u sarifa dadka haysta kaamirayaasha yaryarka ee hoosta ku wata ee waxa la sheegay inta turjuma wax kala u sarifayo dadka wanaagiisa ka shaqeeya dadka xumaantiisa ha ka shaqeynina ilaahay ha ka fogaanina beenta ha sheeginina xishooda dadka ha la isku haayo wabarka aan la wada shaqeyno midnimada aan ka shaqeyno sharafta aan ka shaqeyno ceebta aan diidno doqonimadana aan diidno aad iyo aad u mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام